adiga Soomaaliga waxa laga yaabaa in aad mar walba hooyada aabaha leeyahay markii ku dhahaan hooyo ha igu soo afcelin xilli hore soo hooyo taleefankan badan iska dhaaf marka sheeko la yaab leh oo wadankan aan joogo ka dhacay idin sheega hana ilaawin wadankan aan joogo gobol kamid ah Hitler ku dhashay Hitler wad garanaysaa kaasa ku dhashay marka waxa dhacday aaba meeshan u dhashay ay gabadhiisa yar isfahmi waayeen marar badan isku day inuu dul qaato kadibna uu dul qaadan kari waayay ayr maalin buu yeero alaabtan aan rabaa inaan basementiga geeyo kaala ila qaadan buu ku dhahay malaha basementiga waxa la dhahay guriyaha dhulka hoosteeda laga sameeyo kadibna gabadhu waa iska maskiinay alaabtii ay la soo qaaday aabaheed meeshii loogu tala galay uu malaha ku yiri ila gee ay la geysay kadibna waxa dhacday halkii hal mar ka soo wada bixi laayeen guriga inuu soo kaliya ka soo baxo iyada albaab ku soo xiro alaabtu ila qaad ku lahaana waxa ugu jiray wax walba u baahan tahay oo malaha ku noolaan karto everything ba ugu jiray gabadhan hadda albaabka lagu soo xiray 2 maalin iyo 3 maalin meesha lagu ma hayn doono waxa lagu hayn doonaa 24 sano cid ogaateen haba yaraatee ma jirto hooyadii dhashay haato ama dawladda Austria haato ninkan askarta intuu toos ugu tagay ayuu wuxuu ka soo dhaadhiciyay in ay gabadhaas isfahmi waayeen kadibna ay iska baxsatay oo duurka iska gashay ay noqotay maadka buura iska nool ee passport dan kala hayn dawladii waxa aaminsaneen ee aaminsanba noloshu inay banaanka taale freedom ku banaanka tahay dadkaas ku beertay uu ka dhaadhiciyay askartii iyo hooyadii gabadha dhashayba marka odayga wuxuu sameeyay basementiga dhulka hoose musqul fadhi jiko iyo sariir meel taalo lagu seexan karo malaha wax walba qof ibnu aadam u baahan yahay waaba sii diyaariyay ninkan intaas uu kumun joojine ninkani gabadhii uu dhalay uu aabaha u ahaa wuu kufsaday 2 sano kadibna hal cunug bay dhashayba intaas uu ugumana joojine markuu maalin walba cuntada u keenayo uu darjiyo uu kufsan jiray gabadha wuxuu ka dhalay 7 caruura isagoo gabadha dhalay ayuu gabadhii ka sii dhalay 7 caruura kadib ninkan wuxuu sameeyay caruurtu markay cusub yihiin wuu qaadaa albaabkiisu soo hordhigaa islaantii uu qabay ee gabadha dhashay uu ka dhaadhicinaa gabadheeni cunugaan dhashay waraaqadna way noo soo qortay iyadoo leh anu cunugaan ma hayn karo mana ilaalin karo ee idinku haysta daarabtiin marka odayga wuxuu sameeyay hal markuu soo dhigay albaabka horteeda mid labaad buu soo dhigay mid saddexaad buu soo dhigay dadkaani 3 caruur ay haystaanba 3 caruurtaana islaanta iyo askarta wuxuu ka dhaadhiciyay in ay gabadhiisa dhashay oo dayacday kadibna ay leedahay aabo iyo hooyo idinka hayn kare ii haya hana ilaawin gabadhu 4 bay meesha ku haysataa mid uu geeriyooday 3 baa u soo haray iyo iyadii 4 qof bay ku degan yihiin basementiga hoose kadibna waxa dhacday gabadha ugu weyn oo meeshaas ugu jirtay 19 jir ku gaadhay oo weligeed cadeed arkin weligeed dad kale arkin weligeed gaari arkin xanuunsatay kadib hooyo waa beere way bariday odaygii aab hal mar igu qaada gabadha waa xanuunsanaysaa dhakhtar gee aduu ka yeelay dhakhtarkii uu geeyay dhakhtarkii ma kala geeyay gabadha waa la eegay waxyaabo badan baa ka khaldan waxa lagu yiri gabadha xaga ka keentay kadibna aduu bla 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 uu dhahay waa la aamin waayay ugu dambeyntii waxa lagu dhahay niyo qofkii dhalay keen qofkaas oo u baahan in aragnay gabadhii ku soo laabtay wuxuu ku yiri arintan ma sheegi kartid laakiin waa lagu baahan yahay waa inaad baxdaa oo dhaxdaa anu macnaha aabahay hooyada waan ka cararay haddaan soo laabtay dhibta jirta maxay tahay hal chance bay ku heshay inay kaligeed la noqoto askarta kadibna waxay u sheegtay wax walba oo dhacay odayga waa soo qabtay waa la xiray labadii kale caruur ee basementiga ku jirina iyagana meeshii waa laga soo saaray oo banaanka la keenay dadkan passport cusub iyo nolol cusub baa loo sameeyay haddana wadankan aan joogo ay ugu nool yihiin iyagoo caafimaad qaba laakiin waxa la yiri odaygii hal sano kadib uu soo baxaya oo macnaha banaanku imaanaya marka anaga Hitler kaliya toon ma dhalane kanoo kalena uu naga dhashay dadka qaari German bay Hitler u malayaan moogtahay meel garas la yiraahdo xaggan uu ku dhashay adigana taladan ku siinay wax weyn markii hooyada aabaha ku dhaxaan waxa soo qabo taleefanka bal iska daa hore u soo hooyo hadalkooga yeel dikal wala basement waa lagu xiraa aad ugu maasan daawashay fiidiga daawateen waa inoo fiidiga dambaadu la yiraahdo fiidiga haduu ka cajabiyay like saar oo macnaha nagay laaw hidii dhaqanka siina share garee waa inoo iyo fiidiga dambaadu la yiraahdo peace